cali yare cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga siyaasadda gobolka Banaadir ayaa weji kale u yeelay dagaalka u dhaxeeya Fahad Yaasiin iyo Mahad Salaada. Gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir cali yare cali ayaa markii ugu horeysay taageero hil iyo hoob la garab istaagay Mahad Salaada oo ay xifaaltan siyaasadeed uu ka dhex jiray dhankooda. Cali yare cali ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in Mahad Salaad uu ku difaaci doono xafiiska NISA inta uu joogo garab iyo gaashaana uu noqon doono. Waxa uu gudoomiye cali yare cali sheegay in sidii hore u aaminsanaa madaxdii dowladii hore oo kale uu u garab joogi doono kuwa hadda jooga, balse uu fikirkiisa siyaasadeed weli sidiisa uu yahay. Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo cabsan siyaasadda farmaajo ayaa waxay isku heb yihiin Mahad Salaad oo weliba isku jifo hoose, dadka qaarna ay ku tilmaamaan in dhiigga biyo uusan ahayn oo xigtadu isku soo dhaweysay labadan nin oo markii hore dab iyo basin isku ahaa. Dhinaca kale xildhibaan Qaali Cali Shire oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka 11aad ayaa ka hadashay eedeynta agaasimihii hore NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir u jeediyay agaasimaha cusub ee Mahad Salaada, waxayna sheegtay in qaniinyo ka fujiso. Qaali Cali Shire oo saxaafadda kula hadashay xarunta Villa Hargeysa ayaa waxa ay tilmaamtay in hadalka ka soo yeeray Fahad Yaasiin ay u qaadanayso mid uu isku difaacayo. Xildhibaan Qaali Cali Shire ayaa intaasi ku dartay hadalkaasi maalin buu lahaa, maalin buu qurux badnaa, maalin buu wax qabad lahaa. Waxa aan leenahay weli fursad ayaa haysataa, waxaad haysataa soo bandhig, ayay tiri Qaali Cali Shire oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo fariin u marisay warbaahinta agaasimihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin. Falcelinta ka timid siyaasiyiinta beelaha Hawiye ee aadka ugu dhawaa dowladii hore ee farmaajo ayaa hadda waxay u muuqataa inay kala qaybisay hadalka ka soo yeeray Fahad Yaasiin ee la xiriira in eedda dhammaan uu dul hogiyay 3 mas'uul oo ku jirto dowladda kuwa oo beelahan ka soo jeeda beelaha Hawiye, kuwaas oo kala ah wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta, wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo xildhibaan Mahad Salaad oo hadda ah agaasimaha hay'adda NISA. dhammaan ayuu sheegay inay ka dambeeyeen kiiskii lala xiriirinayay dilkii Ikraan Tahliil Fahad Yaasiin in iyagu ay ka dambeeyeen. Arrintan ayaa durba waxaa ka jawaabay siyaasiyiinta beelaha Hawiye. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan albaabada u xiran yihiin oo warbaahintu ay dibajoog ka ahayd waxa uu kula qaatay xildhibaanada labada aqal. Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlayay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka 11aad ayaa carabka ku adkeeyay inay dhaqan geliyaan dhaqan dowladnimo. Gudoonka labada aqal ayuu cod dheer kaga dalbaday inay ku adkeeyaan xildhibaanada inay soo xaadiraan fadhiyada sharci dejinta ugu dambeyn 3 subaxnimo lana sameeyo waqti xaadirin u eg tan jaamacadaha. Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa ka shanqariyay in xilka qaadista uu ku samayn doono haddii xafiisyada dowladda la soo xaadiri waayo waqtigu dowladdu jadwalaysay. Dhanka kale mudanayaasha ayuu cod dheer ugu sheegay inuu u diyaar garoobaan ka qaybgalka dagaalka dowladdiisu la geli doonto Al-Shabaab, maadaama ay ku dhiman lahaayeen iyagoo fadhiya maqaaxida sida uu sheegay Xasan Sheekh. Xasan Sheekh ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay abaarta dalka Soomaaliya haatan wajahayo, wuxuuna sheegay in Al-Shabaab ay uga sii dareen dadku ay ku qasbeen inay bixiyaan lacago laaluush ah si ay u beertaan beerahooda. taasna waxa uu sheegay inay astaan u tahay cadowtinimada. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu mar kale xaqiijiyay inaysan jiri doonin cid loo beegsan doono inay ka mid ahayd maamulkii hore ee farmaajo, wuxuuna soo jeeday iscafina maadaama isagaba uu cafiyay balantuna uu hore uga qaaday dhammaan mas'uuliyiinta dowladda, taasi oo iscafisa. Sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay inuu u ballan qaadayo inuu u fulin doono heshiiskii 17 May ee sanadkii hore, kaas oo dhigayay in muddo 2 sano gudahood lagu dhammaystiro dhammaan qorshayaasha dowladda ee hortabinta u leh. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankan ula qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka. waxa uu sheegay inuusan noqon doonin mid wax walba ka soo bilaabo, isla markaana uu tixgelin doono waxyaabihii ku guuleysatay dowladda isaga ka horeysay. gabagabada munaasabadan casho sharafka ee Xasan Sheekh u sameeyay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu qaban doono doorasho fudud oo aan lagu dhibtoon doonin, isla markaana uusan waqti badan ummadda Soomaaliya uga bixi doonina. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si cod kar ah
ula hadlay xildhibaan labada aqal hadalladaas isugu jiray kuwa hanjabaad ah, kuwa darxul ah iyo weliba kuwa dardaaran ah iyo kuwa ballanqaadyo u badan inuu wax ka qaban doono duladhiska Soomaaliya ayaa ugu badneed khudbadii qarsooneed uu Xasan Sheekh u jeediyay xildhibaanada labada aqal.